السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عمر. سلامك بعد واحد مقال كان مدوبيا دمان ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed waxa ka bilowday fanka Kanada musuqmaasuq aad u foolxun oo aan la fiirsan karin lagana aamusi karin. muuqaalkan waxaan si dooni ugu duubayaa oo ku socda Cawaale Aadan waan dhalinyaro oo fanaana laakiin waxyaabo aan loo adkeysan karin waxa weeye fanka Soomaaliyeed ee xeerka fankana aan ku jirin muu dhaqan u lahaa awal haddana dhaqan u leeyahay birina dhaqan u lahaan doona. waxaa jirta anigu aan halkan horta maanta u soo fariistay heestan anigu qaaday heestaas Cawaale intuu qaaday oo ayadii oo dhan nooc kale ka dhigay wuxuu siiyay nin dhalinyaro ugama xumin ninka uu siiyay laakiin waxaan ka xumaayay dhaqan xumada uu asagu kula dhaqmayo fanaaniinta gaar ahaan Kanada fanaaniinta reer Kanada. waxaa jirta laxan uu sameeyay Suuga Cabdullaahi Boqore uu sameeyay Jecelow uu asagu isku soo qoray waa heesta ku jecel aniga ku jecel waa heestaas waxaa laxankeeda iskale Suuga Cabdullaahi Boqore. waxaa jirta hees uu leeyahay Khaliif Faarax Xayir ratiga lagu xiray ratiga $1,700 buu wuxuu ka siistay fanaan daahir oo ah nin dhalinyaro oo fankiisu aad u fiican yahay. heestii markuu siiyay uu ogaaday inuu fiidiyowga soo duubayo Cawaale wuxuu ka soo daba duubay heestii oo YouTube ka soo geliyay. heestii Cawaale wuu qaaday daahirna wuu qaaday labadoodii way ku wada jiraan waa tan maanta uu aniga ugu sameeyay. heestii aan anigu soo duubay wuxuu u diray dhalinyaro YouTube leh soo geliya wiilkiina heestii buu siiyay soo geliya si uu soo kaayo keeno asaga iyo daahir waa tan heestaas daahir baa soo qaaday ayadoo Cawaale qaadayna waan idin shidayaa $1,700 buu ka siistay daahir. waxaa taa kaaga sii daran walaalkay Xabad waddankan Xabad isagoo marti ku ah oo Afrika ka yimid wuxuu ku soo degay Cawaale Aadan fanaaniintii magaalada joogtay oo dhan Kanada waa uu ogolaan waayay waana uu ka qariyay. Edmonton buu show ugu qabtay anigu showgaas waan u raacay Xabad tigidkayga anaa u goostay u tagay si aan u garab istaago. Cawaale Aadan Xabad showgii markuu u qabtay lacagtii buu kala soo tagay wax kale oo tarees ka daayay Edmonton buu uga soo tagay. Xabad maanta Edmonton buu joogaa Cawaalana lacagtii buu kala soo tagay dib dambana uma uu salaamin ugumana una noqon. markaan intaas oo dhan isku soo duuduubo waxa laaliyo wuxuu khalad dhalinyarada ka galay oo dhan aan isku soo dardaro. waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan kula dardaarmayaa fanaankii mustaqbal raba oo doonaya in uu fanaan Soomaaliyeed oo mustaqbalkiisu ifaya noqdo in uusan Cawaale Aadan aysan dhex marin wax la xana wax heesta iyo wax fan ku saabsan. waxaa jirta hadda hees uu soo wado Cawaale oo anigu leeyahay anigu hees aan leeyahay. waxaa kaloo jirta hees ay soo wadaan Sakiire iyo Raxmed Roos oo Cawaale iyo Aamin Afriik ay hadda wada qaadi rabaan. Aamin Afriik waa gabar walaashay may oga waxa meeshan ka socda. hadal waxaan ku soo gunaanadayaa Cawaale Aadan aniga taad igu samaysay maanta kama xumi maanta anigu kama xumi laakiin midda aan ka xumahay waxay tahay maadaama aad iyaantaan magacaaga la maqal oo aad is leedahay magacaagu ha soo muuqdo ama dib ha u soo noqdo haddii aad sidan magac ku helisid oo aad sidan door biday waxa weeye haddii sidan magac ku yeelo foolxumada ah anigu runta kama gabado mana baqo
haddaad khalad iga geshid anuu awoodo hadda intaan codtaa kugu imaada inaan dharbaaxa kaala daalo waa waxaan door biday inaan ummadda Soomaaliyeed horta ku ogeysiiyo dhalinyarada Toronto joogta ama Canada joogta ee fanaaniinta ma hor istaagi kartid adigu way soo baxayaan indhahaagu shan abay soo baxayaan waxaa jirta fanaaniin adiga hadda waxa way ku hoos jooga waa low budget ayagoo aniga u jawaabi maayo ayaga laakiin adiga wax kale kugu jawaabi maayo maadaama aad tahay saqajaanka ku dhex jira fanka waxa weeye dadka kula wareegaya burushka nacasnimada qurunka saa u marinaya waxa weeye anigu runtan ku sheegaya kaamana xishoonayo kaamana baqayo dadka aad madaxa kaga istaagi jirteen ma ahay anigu waan isbaranaynaa fiidiyogan fiidiyo baa ku xigi doona isla adiga ka hadlaya wax allaaliya wixii dhaqan xumo aad ragga ku samaysay everything raggi ka baqay xataa aniga u hadlaya uu ka mid yahay xabad uu ka mid yahay raggi aad xumaysay oo dhan oo aan kala hadlin zaak uu ka mid yahay daahir uu ka mid yahay haddii ilaahay ku roon yahay suga cabdullaahi boqorre oo laxankiisii ku jecel aniga ku jecel adigu isku soo qortay uu ka mid yahay khaliif faarax yirkii heesahaadiga ku sameynayay waa laxmadiisa oo dhan sheegatay waxa weeye fiidiyogan fiidiyo ku xiga aniga adiga isbaranayna si fiican isku baranayna billahi tawfiiq aad baa u salaamantiin dhammaantiin nabadgelyo